Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa aad nala socotaan kanaalka Ogsoonow TV. Kanaalka weyn ee TV ee Ogsoonow TV. Waxaan idin haynaa Soomaaliya oo ka mid noqotay 2022 oo ka mid noqotay in koobka xulka kubadda cagta ee Soomaaliya oo xul adag ku aaday wejiga hore ee reebka koobka adduunka ee dhici doona 2022. Xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa ku aaday xul aad u adag wejiga hore ee reebka koobka adduunka ee 2022. Ciyaaraha koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka Qatar. Xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa wajihi doonta reebka 2 kulan oo ah xulka kubadda cagta ee Zimbabwe oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay xulalka ugu adag ee qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ciyaari doonta kulanka koowaad 2 bisha Sebtembar, halka kulanka labaad ay ciyaari doonto 9 bisha Sebtembar. Kulan waxa ay ka kala dhici doonaan Zimbabwe iyo Djibouti ay ka dhici doonaan 2 kulan. Kaliya 28 ka mid ah kooxaha qaaradda ayaa ah kuwa ugu hooseeya qiimeynta la sameeyay bishii Luulyo World Ranking. Kulamada isku aadka waxaa lagu saleeyay qaabka ay xulalku ugu heleen qiimeynta bilaha ee FIFA. 14 guuleyste waxay ku biiri doonaan wareegga kale ee 26 ugu sareysa ee qaaradda, kuwaas oo laga reebay wareegga reebka. 40kaas koox oo ay marka loo qaybin doono 10 kooxood oo 4 ah wareegga labaad ee reebka. 10ka guuleyste ee kooxahaas ayaa markaa kadib la isku aadi doonaa mid kasta oo ka mid ah kulamada guriga iyo kan dibadda, iyadoo 5 guuleyste ay sii gudbayaan Qatar 2022. Waa kaas FIFA World Cup Qatar 2022 African Qualifiers. Si toos u jeedaan si isku aadeen Soomaaliya. Kulanka ugu horeeya waxa Itoobiya iyo Lesotho, Soomaaliya iyo Zimbabwe waa kulanka labaad ee ciyaarayaan. Eritrea iyo Namibia way badan yihiin. Burundi ku jirto, Tanzania ku baxayaan, Djibouti, Eswatini waa Botswana way badan yihiin. Gambia waa wadamo aad u badan waaye. Sidoo kale wadamada ugu caansan waxaa ka mid ah oo inta ku jira Itoobiya, Soomaaliya, Eritrea iyo Zimbabwe, iyo waxaa kaloo Tanzania ugu caansan. Sidoo kale Burundi, Djibouti ugu caansan, Malawi ugu caansan. wadamada ugu waaweyn waa Suudaan ku jirto. waa wadamada ugu caansan. waa sugi doonaa koobka u jeedaan. sidoo kale u jeedaan waxa sawirka ka in ay ku aado Soomaaliya iyo Zimbabwe. waa labo wadamo Zimbabwe waa labo wadamo. marka u jeedaan ninka sawirka ugu soo dhaweynayo Soomaaliya iyo Zimbabwe. waa kulanka labaad ee ugu adag. waxaan sugi doonaa waa guul haddii aan Soomaali. waxaa si toos ah noogu heli kartaan ama war inta ka dhammaan noogu heli kartaan Ogsoonow TV. mar walba hala socdo. asxaabta waxaan leenahay please subscribe, share and comment. inta hala saaro. aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.